odayaasha iyo waxgaradka beelaha hawi oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa warbaahinta waxay la wadaageen kulan ay la qaateen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. kulankaasi ayaa odayaasha waxay ugu gudbiyeen ra'iisul wasaaraha cabasho ku saabsan talooyin ku aadan matalaada beelweyntan ay ku leedahay siyaasadda dalka. nabadoon Maxamed Xasan Xaad, gudoomiyaha odayaasha dhaqanka hawiye oo qayb ka ahaa odayaashii goobjooga ka ahaa kulanka ay la qaateen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, ayaa sharaxaad ka bixiyay waxyaabihii lagu soo hadal qaaday kulanka. gudoomiye Xaad ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in shaqo aysan ku lahayn warqad lagu faafiyo baraha bulshada oo ka turjumaysay kulan ay la qaateen ra'iisul wasaaraha. kulan dheer iyo falaaqayn kadib waxaan ku ballanay annaguna haddaan isu sheegaynaa gogoshaan hadda aan fadhino inaysan dhammaanayn ay fidsan tahay. shirkan uu noo soconayo haddii alla yidhaah ilaa laga xalliyo cabashada aan geynay, warqadda aan geynay oo wax badani ku jireen, oo u badan gobolka Banaadir sida taalla, oo u badan konsenka iyo walwalka aan ka qabno doorashada hadda la gelaa. waxaasoo dhan warqaday ka buuxeen. marka ilaa laga qanciyo warqadaasna la ka qanciyo waxaan u sheegnay Prime Ministerka iyo wasiiradiisa inta annaga naqusaysa inaan gogoshaanu laabmay. intaas kadib mas'uuliyadeeda haddii la faafiyey iyo haddaan la faafin ba annaga wax shaqahan ku leenahay ma jirto. waxa kaliya oo naga quseeya waa inaan jawaabta ka soo laabatay sugno aragnana haddayna qanciso iyo haddii kalaba. annaga dowrka aan leenahay waa kaas. waxaan ku celcelinaa inaana warqadaas faafideeda shaqo ku lahayn, aanan ku talagelin inaan faafino. maxaa yeelay haddaan faafinayno halkanaan ka faafi lahayn, shirkaanaan ku akhri lahayn. waana akhri jirna, waana garanaa inaan akhrino. afayeenka beelaha hawiye nabadoon Cabdinuur Axmed Diiri iyo qaar ka mid ah waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen kulanka ay la qaateen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, iyaga oo sidoo kale ka codsaday dawladda in ay xoogga saarto arrimaha bulshada iyo matalaada gobolka Banaadir. dhanka ra'iisul wasaaraha wixii aan dareen qabnay ama maaragtaa markaas aan dareensanayn ama hore aan soo sheegno shirarkayga hore ku saabsanaana sida odagu uu sheegaba wasiiradii iyo Prime Ministerka aan la wadaag. xaqiiqadii odayaasha si dokumenti ah ee si toos ah cabashadoodii way u gudbiyeen ra'iisul wasaaraha. ra'iisul wasaaraha khayr la siiya waa hadlay. xaqiiqadii waxyaalo badan oo mataqaana walaac fara badnaa ayuu daaweeyay. ra'iis waxa kamid ahaa war aniga meesha wax kale uma joogee adinkaan qowsaar idin ahay miyaad u kalsooneen buu yiri. xaqiiqadii meesha meel maran ma aha. xaqiiqadii meesha rag baa noo jooga, mumathil baa noo jooga. marka beeshaana waxay ka baqayaan waa wax jira waaye, waa siyaasad lagu jiraa, xilli wax karin baa lagu jiraa. marka wax soo socdo ama ay xumaadaan baa laga baqayaa. ra'iisul wasaarihi iyo wasiiradii intaas leego isla jooga cadadkaas leh oo inta dadka meesha fadhiya ka dhashay wixii wara oo na dhex maray dibna waa isku noqonaynaa haddii la yiraahdo, waana ka garaabeen. nuxurkii natiijaduna waxay tahay warka dambe. tan iyo markii la riday xukuumaddii ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre waxaa isa soo tarayay cabashada iyo kheyladhaanta. nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo aan horey looga baran in uu aad ama dhaliil u jeediyo dowladda federaalka Soomaaliya. Ismaaciil Turki, Shabeelle. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking. kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank